بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وركي وكوبان mas-uuliyiinta wasaaradda diinta iyo waqaafta somalilan ayaa tababar u soo xidhay maamulayaasha iyo macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee dalladda siraaj. taliyaha ciidanka laanta socdaalka somalilan sarreeye guute maxamed xuseen faarax xiiran ayaa war qoraal uu soo saaray waxaa lagu sheegay in xarunta taliska guud ee ciidankaasi laga bilaabay ololaha tallaalka ee ka hortagga joonis cadka. agaasimaha guud ee wasaaradda xidhiirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka marwadeeqa cabdi yuusuf ayaa munaasabad sharafa ku maamustay hablihii loo doortay hoggaanka ururka saxafiyiinta somalilan ee solja. agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ayaa shahaadooyin guddoonsiiyey 61 arday oo dhammaystay xirfadaha kala duwan ee farsamada gacanta kuwaasoo ay waxbartay hay-adda safety children. waxaa magaalada hargeysa lagu soo bandhigay buugga horjoogsi kaasi oo lagu soo ururiyey culuum ka hadlaysa diinteenna suuban ee islaamka. weeraro dhinaca cirka iyo badda ah oo socday 5 saacadood ayay maraykanka iyo ingiriisku ku qaadeen 60 bartilmaameed oo ku taalla gudaha dalka yemen. waqooyiga kuuriya ayaa markii ugu horraysay oggolaanaya in dalkeeda soo galaan dalxiisayaal ka yimid dhinaca ruushka tan iyo sannadkii 2020. kuwaas waa qaar ka mida qodobadii warka ugu doorka roonaa. haatanna dhegaystayaal u diyaar garooba qodobadaasi oo faahfaahsan. mas-uuliyiinta wasaaradda diinta iyo waqaafta somalilan ayaa tababar u soo xidhay maamulayaasha iyo macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee dalladda siraaj. agaasimaha waaxda horumarinta tacliinta iyo dacwadaha ee wasaaradda diinta iyo waqaafta mudane cabdixakiim maxamed muuse oo xidhitaankii tababarkaasi ka hadlay ayaa ka warramay ahmiyadda tababarkaasi u leeyay macallimiinta iyo maamulayaasha madaarista qur-aanka kariimka ee tababarkaasi qaatay iyo sida kor ay ugu qaadi doonto heerkooda aqooneed. xidhitaankii tababarkaas ayaa mas-uuliyiinta wasaaradda diinta iyo waqaafta somalilan waxay xarunta wasaaraddaasi ku guddoonsiiyeen shahaadooyinkoodii 300 ee macallin ee tababarkaasi dhammaystay. mas-uuliyiinta wasaaradda diinta iyo waqaafta ayaa waxay kula dardaarmeen maamulayaashii iyo macallimiintii tababarkaasi u soo xidhmay in cilmigii ay goobtaasi ku barteen bulshada ugu shaqeeyaan aqoontii goobtaasi ay ku barteenna ay ku dabaqaan howlahooda shaqo. taliyaha ciidanka laanta socdaalka somalilan sarreeye guute maxamed xuseen faarax xiiran ayaa war qoraal oo uu soo saaray waxaa lagu sheegay in xarunta taliska guud ee ciidankaas laga bilaabay ololaha tallaalka ka hortagga ee joonis cadka oo laga tallaaliyay ciidankaasi. war-saxaafadeedkan ciidanku soo saaray oo nuqul ka midii soo gaadhay xafiiska wakaaladda wararka somalilan ee soolna ayaa u dhignaa sidan: kadib markii ciidanka socdaalku garwaaqsaday aafada xanuunka dhibta badan ku haya bulshada ee joonis cadka waxaa taliyaha ciidanka socdaalka somalilan sarreeye guute maxamed xuseen faarax xiirane oo kaashanaya xafiiska caafimaadka ee ciidanka socdaalka iyo mas-uuliyiinta needle hospital ambatology lab waxaa taliska ciidanka socdaalka ka bilaabmay ololaha tallaalka ka hortagga joonis cadka maadaama ay howlwadeenadeena ciidanka socdaalku ay si joogtaa ugu shaqeeyaan bulshada noocyadeeda kala duwan muhiimna ay tahay in la hubiyo badqabka howlwadeenadeena. taliyaha ciidanka socdaalka waxa uu uga mahad celiyey maamulka dhakhtarka needle iyo xafiiska caafimaadka ciidanka socdaalka oo si hagar la-aana ugu adeegay sidii howlwadeenadeena looga tallaali lahaa cudurkaas oo halistiisu badan tahay bulshadeennana kusoo kordhaya. agaasimaha guud ee wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka marwadeeqa cabdi yuusuf oo munaasabad casho sharafa ku maamustay hablihii loo doortay hoggaanka ururka saxafiyiinta somalilan ee solja. deeqa cabdi muuse oo agaasimaha guud ee wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ayaa xafladdaasi casho sharafta ahayd ee loo qabtay hoggaanka hablihii loo doortay ururka saxafiyiinta solja soo agaasintay waxaana kasoo qayb galay qaar ka mid ah haweenweynaha ku dhaqan magaalada hargeysa iyo hablihii loo doortay hoggaanka ururkaasi. deeqa cabdi muuse waxay ku bogaadisay hablahaas hawsha ay bulshadooda iyo qarankoodaba u hayaan. marwadeeqa cabdi waxay xustay in laisbarbar taaga haweenka bulshadeenna haldoorka u noqda islamarkaana marwadeeqa cabdi muuse waxay si gaara u xustay kaalinta lixaad kale ee haweenweynaha somalilan kaga jiraan dhismaha qarannimada iyo sida ay u soo saarayaan haweenkaasi dhallinyaro aqoon-yahana oo bulshadooda waxtara. dhankooda xubno ka mid ah haweenweynaha ku dhaqan magaalada hargeysa oo xafladdaasi ku sugnaa ayaa ugu hambeliyey hablaha loo doortay hoggaanka ururka saxafiyiinta solja waxaanay ku bogaadiyeen hablahaasi aqoontooda iyo kartidooda ay bulshadooda ugu shaqeeyeen waxaanay ugu duceyn eebbe u fududeeyay xilkaasi loo igmaday.
agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ayaa shahaadooyin guddoonsiiyey 61 arday oo dhammaystay xirfadaha kala duwan ee farsamada gacanta kuwaas oo ay waxbartay hay-adda Save the Children. xafladda ardaydaasi qalin jabinayeen waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ay ka mid yihiin agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska, mas-uuliyiin ka socotay hay-adda Save the Children, madaxda gobolka Togdheer ee magaalada Burco. ardaydaasi ka baxday dugsiga farsamada gacanta magaalada Burco oo ay dhiganayeen muddo 8 bilood ah halka 2 biloodna ay ku jireen shaqo carbin. maamulaha dugsigaasi farsamada gacanta ee magaalada Burco Fuaad Aadan Cabdilaahi waxa uu ka warbixiyey sida ardaydaasi uga faa'iideysanayeen xirfadda farsamada gacanta, waxaana uga mahadceliyey hay-addii mashruucaasi farsamada gacanta maalgelinaysay. madaxa hay-adda Save the Children ee gobolada bariga Somaliland Maxamed Maxamuud Xaaji Lacag iyo madaxa hay-adda Save the Children ee Somaliland Cabdinaasir Cali Sahal waxay ka warameen ahmiyadda farsamada gacanta u leedahay ardaydaasi baratay iyo sida ardaydaasi ugu shaqo tegi doonaan xirfadaasi la baray. agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Cabdirasaaq Jaamac oo halkaasi ka hadlay ayaa ku bogaadiyey mas-uuliyiinta hay-adda Save the Children hawsha ballaadhan ay ka geysteen waxbarashada ardaydaasi. agaasimo waxa uu tilmaamay in xirfadda farsamada gacantu wax weyn ka tari doonto shaqo yaraantii dhalinyarada dalka haysatay. waxaa magaalada Hargeysa lagu soo bandhigay buugga horjoogsi kaasi oo laga soo ururiyey culuum ka hadlaysa diinteena suuban ee Islaamka, waxaana buuggaas horjoogsi qortay Qoraa Khadre Maxamed kana mid ah bahda qalinleeda dalka. xafladdaas waxaa ka soo qayb galay musharaxa madaxweynaha ee xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi, marwaadna aadan dhakhtar, gudoomiyaha xarunta dhaqanka magaalada Hargeysa Jaamac Muuse Jaamac, gudoomiyaha jaamacadda Beder, aqoon-yahano dhalinyaro iyo marti sharaf kale oo lagu soo casuumay. Qoraa Khadre Maxamed oo qortay buugga horjoogsi ayaa ka warantay ahmiyadda buuggaasi u leeyahay bulshada iyo sidii bulshadeena buuggaasi ugu dhiirigelinayo ku dhaqanka diinteena suuban. waxaa kaloo Khadre Maxamed tilmaantay in buuggaas horjoogsi uu ka waramay ahmiyadda cibaadadu u leedahay bini'aadamka iyo in lala xisaabtamo nafaheena. mas-uuliyiin ka socday shirkadaha kala duwan ee dalka qaarkood oo xafladda buuggaasi lagu soo bandhigay ku sugnaa ayaa ku bogaadiyey Qoraa Khadre buugga horjoogsi ay qortay iyo sida bulshadeenu uu ugu dhiirigelinayo ku dhaqanka shareecada diinteena suuban ee Islaamka. warkaasi waxaad kala socotaan Radio Hargeysa. weeraro dhinaca cirka iyo badda oo socday 5 saacadood ayay Mareykanka iyo Ingiriisku ku qaadeen 60 bartilmaameed oo ku taala gudaha dalka Yemen, sida ay baahisay wakaaladda wararka Mareykanka ee AP xalay saqdii dhexe. taliyaha ciidamada Mareykanka ee bariga dhexe ayaa sheegay inay garaaceen 60 meelood oo ku yaala 16 saldhig ciidan oo ay leeyihiin Xuutiyiinta Yemen, kuwaasoo khaati laga taagnaa bilihii la soo dhaafay. waxa uu intaasi ku daray inay dambaska ka dhigeen gantaalo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo nidaamka difaaca gantaalaha ee Xuutiyiinta. madaxweynaha Mareykanka oo ka hadlay duqeymaha dhinaca cirka iyo badda ee Xuutiyiinta lagu qaaday ayaa sheegay in halista halkeeda loogu tago aan la daawan. waxa uu sheegay in Xuutiyiintu ganacsigii badda casmarayay ay dooneen inay joojiyaan, taasina aanay suurtagal ahayn. caasimadda Sanca iyo magaalada dekedeedka Xudaydiya ayaa gantaaluhu ku habsadeen oo holac iyo qaylad isku darsantay. hogaamiyaha kooxda Xuutiyiinta Yemen ayaa sheegay inay ka argoosan doonaan weeraradii ay xalay ku soo qaadeen Mareykanka iyo Ingiriisku, sida ay tibisay wakaaladda wararka Yemen ee Saba. waxa uu sheegay in maalmaha soo socda ay weerar ku qaadi doonaan maraakiibta Mareykanka iyo Ingiriiska ee maraya badda cas. wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Xuutiyiinta Yemen ayaa isna sheegay inay colaad cusub u bilaabantay iyaga Mareykanka iyo Ingiriiska. waxa uu sheegay inay yaabi doonaan waxa ku dhaca ee ay jawaabta kaga bixin doonaan weeraradii ay soo qaadeen. telefishinka kooxda Xuutiyiinta Al-Masira ayaa baahiyey duqeymaha ku dhacay caasimadda Sanca iyo Xudaydiya. muuqaalo laga soo duubay goobihii ay duqeymuhu ku dhaceen ayaa muujinaya baaxadda ay leeyihiin weeraradu. waqooyiga Kuuriya ayaa markii ugu horeysay ogolaanaya in dalkeeda soo galaan dalxiisayaal ka yimid dhinaca Ruushka tan iyo sanadkii 2020, sida ay ku warantay wakaaladda wararka Reuters. waqooyiga Kuuriya waxay dalkeeda ka joojisay inay soo galaan wixii shisheeye ahi markii uu bilaabmay cudurkii corona ee adduunka sida weyn ugu faafay. badhasaabka gobolka Ruushka ee jaarka la waqooyiga Kuuriya ayaa booqasho dalxiis ku tegay dalkaasi, taasina waxay keentay inay dalxiisayaal tegi karaan dalka aadka adduunka uga xidhxidhan ee waqooyiga Kuuriya. dalxiisayaasha Ruushka ayaa loo ogolaaday inay booqasho 4 cisho ku joogi karaan caasimadda waqooyiga Kuuriya ee Pyongyang iyo jaarkeeda,
labada hogaamiye ee waqooyiga Kuuriya iyo Ruushka oo kulmay bishii 9 ee sanadkii hore ayaa isku afkartay in labada dal isku furmaan. boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa ugu baaqday in dhinacyada isxakameeyaan kadib duqeyntii Mareykanka iyo Ingiriisku la eegteen saldhigyada ay jabhadda Xuutiyiintu ku leeyihiin dalka Yemen, sida lagu sheegay war qoraal oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Sacuudi Arabiya. warku waxa uu intaasi ku daray in Sacuudi Arabiya uu bilihii ugu dambeeyay wadahadal nabadeed kula jiray kooxda Xuutiyiinta ee ka tirsan Yemen oo ay doonayaan inay si dhow la socdaan xaaladda ka taagan gobolka. Sacuudi Arabiya ayaa carabka ku adkaysay sida loogu baahan yahay nabad iyo xasilooni ka dhacda badda cas. xorriyadda socdaalku waa baahi caalami ah ayaa lagu yidhi warka. madaxa wadahadallada Xuutiyiinta Maxamed Cabdisalaan ayaa sheegay in weerarada ay ka geysanayaan kooxdoodu badda cas aanay khatar ku ahayn wadahadalka nabadeed u dhexeeya Xuutiyiinta iyo Sacuudi Arabiya. boqortooyada Sacuudiga ayaa hore sheegtay inaanay qayb ka noqon doonin weeraro lagu qaado Xuutiyiinta. ugu dambeyn, dowladda Taiwan ayaa sheegtay in Shiinuhu doonayo inuu culays saaro madaxweynaha soo socda ee hogaamin doona dalkaasi kadib doorashada dhici doonta maalinta Sabtida ee fooda inoogu soo haysa. waxay sheegtay in dowladdu inkastoo aanay weli caddayn cidda ku guuleysan doonta doorashada, haddana Shiinuhu ayaa faragelin ku haya. shacab weynaha Taiwan ayaa maalinta berri ee Sabtida u dareeri doona doorashooyinka saaran ee madaxweynaha iyo baarlamaanka, waxaana lagu wadaa inay soo dooran doonaan madaxweyne cusub. madaxweynaha cusub ee la dooran doono waxaa la dhaarin doonaa bisha 5 ee isla sanadkan. wasaaradda gaashaandhigga ee Taiwan ayaa sheegtay in saaka salaadii hore soo riday 5 buufimood oo soo galay hawada Taiwan, kuwaasoo ka yimid dhinaca Shiinaha. Shiinaha ayaa dhowr jeer hore soo farageliyay xuduudda badeed ee Taiwan. warkii waad kala socoteen Radio Hargeysa codka Jamhuuriyadda Soomaaliland waa naga intaasi. haatan qadar baafina.